xafiiska waxbarashada ee dalada Al-Huda ayaa tababar u soo xiray qaar kamid ah macallimiinta dugsiyada barbaarinta iyo dugsiyada Qur'aanka Kariimka ah ee hoos yimaada daladaasi Al-Huda. munaasabadaas oo tababarkaasi lagu soo xiriyay loo qabtay qaar kamid ah macallimiinta dugsiyadaasi ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan. waxaana tababarkaasi iyo muhiimadiisa ka warramay gudoomiyaha dalada Al-Huda Ciise Yuusuf Maxamed isagoo macallimiinta tababarkaasi qaadatay u soo jeediyay in uu tababarkaasi si weyn uga muuqdo goobaha waxbarashada ay ku noqonayaan. halkan 100 macallin baa tababar ku qaadanay oo kala qaybsan macallimiinta Qur'aanka iyo macallimiinta dugsiyada rawdada ama fasalada rawdada u dhiga tababarkaasoo runtii ay nagu tala gashanayn skillskooda inuu xoojiyo waayo mar walba macallinku aqoontu xambaarsan yahay tababarku wuxuu soo kordhiyaa qaabku adaagu sameyn lahaa ama qaabku u gudbin lahaa waana muhiim inuu qofku mar walba hab mutacassira iyo sida dariiqa ugu dhow ee uu macluumadii uu sidee ardayga u gaarsiin lahaa in mar walba aynu isku update gareeno aad iyo aadna waan idinka mahad celinayaa waxa weeye dhammaan macallimiintii ka qayb galay oo runtii waqtigooda ilaaliyay waxaanan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka barayaa inuu idinku anfaco waxaanan aad iyo aad u rajaynayaa inaanay noqonin macluumad qofku uu qaatay laakiin aanu amal gelinin maamulada inta waxa la siiyaa seminar iyo tababaro runtii dugsiyadooda waxay u eegaadaan sida uu macallinku maamuluhu tababarkii la siiyay waxa way u hirgeliyay marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa fasaladii marka ku laabataan khibradii ay hayseen wixii yaraayo koobnaayaan idin la wadaagnay in ku kordhisataan. geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah macallimiinta tababarkaasi bixinayay iyo kuwa qaadanayay laftooda kuwaas oo ay kamid ahaayeen Professor Xasan Maxamed Cabdi iyo Macallin Cabdifataax Yuusuf Xirsi iyo Sheekh Maxamed Muuse Saciid waxaana ay dhammaantood ka warrameen muhiimadda tababarkaasi uu leeyahay goobaha dugsiyada dalada Al-Huda hoos yimaada ee dugsiyada barbaarinta iyo kuwa Qur'aanka Kariimka ah iyagoo dalada Al-Hudana uga mahadnaqay tababarkaasi qiimaha leh ay siisay. nuxurku waxa weeyaan inaynu hadii Ilaahay ka dhigo isku baraarujino tababarkii halkan maanta aynu ku qaadanay inaynu amal u bedelo oo aynu dugsiyadii iyo waxa weeyaan goobihii shaqada aynu ka nimid aynu kula noqono waxaynu halkan maanta ka faa'iidnay isla markaana runtii ay ka muuqato shaqadeena aynu bari qaban doona hadii Ilaahay ka dhigo macallin kasta oo halkan fadhiyaana runtii marka hore dugsigu ka howlgalay khibrad buu lahaa aqoon buu lahaa laakiin ujeedkeenu lahayn ee maanta aynu kulan ku qabanayno waxay ahaydun in macallinka runtii waxa weeyaan refresh la siiyo oo waxa weeyaan dib loo xasuusiyo ma garanaysaa kalaasyadii iyo aqoontii iyo waxa weeyaan tababarkuna runtii waxa weeyaan wuxuu macallinka ka saacidaa inuu had iyo jeer macallinku ahaado update oo aqoontiisa runtii uu kobciyo tababarkuna halka ku istaagi maayo kulay waxaan rajaynayaa tababaro kala duwan oo waxa weeyaan waqti ka badan qaataan inaynu heli doono waxaan anu macallimiinta kula dardaarmayaa in hadii Ilaahay ka dhigo arinta aynu hoosta ka xariiqno oo wixii halkan aynu ka faa'iideysanay oo inaga muuqdo